بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waxaa farxad noo ah inaan munaasabadan muhiimka ah ee bini'aadantinimada aan safaaradda ku qaban qaabino. munaasabadani run ahaantii waxa weeyaan munaasabad bini'aadantinimo oo marwada koobaad ee dalka Djibouti ana gudoomiyaha ururka haweenka Djibouti marwo Khadra Maxamuud Xayd ay maaragtaan ay kadib kolkii ay aragtay hooyadan Soomaaliyeed oo Ilaahay uu ku arsaaqay afar ciyaal ah oo mataana amar qura waxa ay garwaaqsatay inay gargaar ay maaragtaan ugu deeqdo gargaarkaas oo ah gargaar dhan $5,000 si maaragtaan gabadhani Soomaaliyeed ama hooyadan Soomaaliyeed afarta ciyaal dhashay ay kaalmo ugu noqoto. run ahaantii waxaan oran karaynaa waxa weeyaan dareen bini'aadantinimo waa dareen walaaltinimo oo marwada koobaad ee dalka Djibouti ana gudoomiyaha ururka haweenka Djibouti Khadra Maxamuud Xayd ay ugu deeqday walaasheed haweeneydan Soomaaliyeed. waxaanan rajaynaynaa ama Ilaahay aan ka weydiisanaynaa subxaanahu wa ta'aala inuu Ilaahay iyadana ka abaal mariyo gabadhan Soomaaliyeedna Ilaahay inuu garab galo iyo ciyaalkeygaba. run ahaantii dareenkaasi wuxuu muujinayaa reer Djibouti dareen guud ahaaneed oo ku jira oo maaragtaanay hadba dhibaatadii jirta inaan walaalahayaga Soomaaliyeed la garab joogno oon maaragtaanay garab gallo. taageerada Djibouti ay Soomaaliya u qabtana ma aha wax imika bilow ah, dhinacyo fara badan bay ka taabanaysaa. laakiin tani maanta waxaan oran karaynaa waxa ay leedahay dareen gaar ah, waa dareen hooyanimo, waa dareen walaaltinimo, waa dareen maaragtaanay qof kasti oo Soomaaliya aw maaragtaanay dareemi karo hooyadan Soomaaliyeed ee afarta ciyaal leh sidii loo garab joogsan lahaa. marka munaasabadan anigoo ka faa'iideysanaya waxa aan maaragtaanay xasuusinayaa in sidoo kale aan u mahad celino Mama Caasha Foundation oo maanta halkan ay nagala joogto walaasheen Faadumo Axmed Cusmaan oo ah maxay hayday maamulaha xafiiska Muqdisho. run ahaantii Mama Caasha Foundation oo iyaduna qayb laxaad ka qaadata taakulaynta ummadda Soomaaliyeed marwada koobaad waxay codsatay in loo sii mariyo gargaarkan maaliyadeed ee dhan $5,000 loo sii mariyo Mama Caasha Foundation si maaragtaanay ay iyadu ugu gudbiso hooyadan Soomaaliyeed. taana waxa ay ka dhigan tahay annagoo qiimeynayna kaalinta laxaad kale ee ururkani uu kaga jiro taakulaynta ummadda Soomaaliyeed. waxaanan mar waliba aan rajaynaynaa inaan wada yeelano wada shaqayn joogto ah annaga iyo Mama Caasha Foundation si aan iskaga kaashano si wax loogu qaban lahaa cid kasta oo Soomaaliya oo dhibaato haysato. imika ahaana waxa farxad ii ah aniga inaan deeqdan lacageed aan u gudbiyo Faadumo Axmed Cusmaan oo ah wakiilka Mama Caasha Foundation ee Muqdisho. iyada marka u gudbin doonta walaashan Soomaaliyeed ee maaragtaanay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku arsaaqay afartan ciyaal ilmo kasto dhashaba arsaaqdiisa Ilaahay baa haya. marka tani waxay cadeyn u tahay in maaragtaanay ciyaalka dhalmahoogu iyo arsaaqda isku xidhan yihiin. marka annaguna gargaarkayga waan sii wadi doonaa haddii Ilaahay idhaaho. imikana waxaan guddoonsiinaynaa Faadumo Axmed Cusmaan deeqdan lacageed ee $5,000. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. horta maanta aad iyo aad ayaan faraxsanahay annagoo ah bahda Mama Caasha Foundation sida wanaagsan uu noogu qaabilay safiirka dalka Soomaaliya u fadhiyo Dayib Dubad Rooble. aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay walaalkeen Dayib. aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay gargaarka bini'aadanimo ay soo fidisay dalka Djibouti marwada madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele Khadra Maxamuud Xayd. aad ayaan ugu mahad celinaynaa Mama Khadra. waxayna tusaysaa tilmaan ahaan Mama Khadra sababtoo Soomaaliya Djibouti waa dad walaalo ah ka damqatay dhibaatada walaasheed Xaliimo maanta ku haysata Muqdisho aragtay meediyaha ka daabatayna dhibaatada haysata Xaliimo waa qofkii ugu horeeyay ee ka soo saacida dawlad ahaan Xaliimo xagga gargaar bini'aadanimo. taasi ma aha
وادد وضع الشيء جيبوتي يا سوماليا إن شاء الله تعالى وحنا رجينا تن يتوقف عن بإني نوع إيمان دونتو مع قطر آدي ينقوم هاد علينا وحاكلو مدحوينها دلك جيبوتي إسماعيل عمر جيلي يحاس كيس قطر آن سلان لسه كوبي كن أو فرحات اللي أن إذن كجسدا مذاحد السر دلك UK أفرسا مع معاش فونديشن مريم أحمد حسين أو كم قاعدين مريم أحمد قاب وحي إذن لا هاي إن وحنا إذن كسلامة سلامة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جو وكيل مريم كنا فرح ذي هدي عن أشياء إن وعي سفير كدلك جيبوتي وفريق الصومالية طيب ونقول دون سين دون ولا شيء حليمة جرجار كي بني آدم أسوأ في ذسي مرودي كواد مدحوينها دلك جيبوتي آدي يعني هم هاد علينا تاسنا وحين تسيسا الصومالي جيبوتي إنه يهندد ولا لا اسكو الدين اسكو دقن وحان رجينا إن شاء الله تعالى ومد الصومالية ميل والبقي جوكتو يأدون كدافيس الدولة ده كان إنه سدا يسكف في عن قبل حليمة مساكين تقصوا جرمدان أو ده شيء أفر تعرور ومتك صغيرة هدنا أفر صدق ده عنق أي هيسته وحانوا لانها مع قطرة ثاني هاتو تي إلهي وآخر كل شفيعي صوته واحد يقول قارتدد مساكين ومقبض عن مساكين تأرد أيات كفيدي شنكن أو دولار ما أنت ديل معها وحي لو سو ديبي waa xaliima dhibaatada haysata aad u soo dhiibtay adigana ajri xasanaad Allah ka siiyo waxaan leenahay ummadda Djibouti oo dhan waxaan leenahay insha Allah taala waa idin ku faraxnay sida gargaarka bini aadanimo aad u soo fidiseen walaashin Soomaaliyeed ee xaliimo waxaan leeyahay intaas hadalkayga ayaan ku soo koobaya waad mahadsan tahay ilaahayna aakhiraha kugu abaal mariyo dhammaan bahda maamacaasha foundation waxay idin leeyihiin gacmo furan ayaa idin ku soo dhaweynaynaa had iyo jeerna waxaan jecelnahay inaan si toos ah annaga iyo dawladda Djibouti aan u xiriirno oo hore u socdo xiriirkeena maahan mid maanta kaliya ku kooban insha Allah taala waxaan leeyahay sida iyo nabadgelyo iyo waxaan ku wareejin doonaa xoolihii amaanada ahayd oo ugu wareejiyay safiirkii Tayyib $5,000 maanta waxaan gacanteeda saaraya maama xaliimo lacagtan waxa ku soo dhiibtay marwada koowaad ee madaxweynaha maama qatro wixii aad ka dhihi lahayd nawaadi